madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan qodobo xasaasi ah ka dalbaday xildhibaanada laga soo doortay Jubbaland madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madoobe ayaa maanta magaalada Muqdisho kulan kula qaatay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ku matala dowlad goboleedka Jubbaland kulankaas oo ahaa qada sharaf oo Axmed Madoobe uu sameeyay xildhibaanada ayuu u soo jeeday khudbad kaga hadlayo xaaladda siyaasadeed dalka Axmed Madoobe oo madaxweynaha Jubbaland ayaa u sheegay xildhibaanada inuu soo dhamaaday dagaalkii dheeraa ee isaga iyo dawladda dhexe isla markaana uu waxba u qabin xildhibaanadii u hiiliyay dawladda federaalka intuu dagaalka siyaasadeed kula jiray maamulkiisa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa tilmaamay inuu fahansan yahay in xildhibaanada aad uga walwalayaan sida ay dib ugu soo laaban lahaayeen balse uu kula dardaarmay inay dalku u turaan ay danahooda gaarka ah aysan wax kasta ka hormarinin war xildhibaano aan iscafino saan filaya adduun wax badan iga tirsan maysaan laakiin aad isleedihiin odayga waad ka heeliseen oo dagaal dheer ayuu soo galay balse waxaan idin sheegayaa hal qof ah oo aan wax u qabo ma jiro ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland ayaa kulankii xildhibaanada deegaanada maamulkaasi ku matalaya dawladda dhexe uga dalbaday 3 qodob oo kala ah in ra'iisul wasaaraha cusub ee madaxweynuhu soo magacaabay ay codkooda kalsooni ku siiyaan isla markaana la shaqeeyaan muddada yar ee u harsan in ansixiyaan heshiiska ay ka gareen nooca doorashada ee dalka ka dhacaysa maadaama uu xilka ugu dambeeya ay isla garteen qodobka saddexaadna wuxuu yiri in xildhibaanadu ay ogaadaan in aysan jirin cid wax u qabta oo u sameeyeen deegaanka doorashadooda ka maamul ahaana ay soo dhaweyn doonaan ugu dambeyn madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan ayaa xildhibaanada kula dardaarmay in ay ka wada shaqeeyaan sida ugu wanaagsan ee dawladnimada Soomaaliya ku sii jiri karto